بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرتنا شرفت لك وصلنا هذا كنال كنا برا في إنجليز وكنال أبو طلق لنا إن كسوق بينه عشرة كسابسن وقدم أفكار إنجليز كا سيدو الكنال كان أبو طلق لنا إن كفائدستان دت كواوين عن وقت وهلي كرين إن برتان لقدر إنجليش كا إيو عروض يرير إن عشر كنا ما نتولي وحدة بتاعين عشر كنا هراء وكسابسنا subjective pronoun ما أنت وحكي هذينا أنا واستعمالنا subjective pronoun أو kusii darsanayna verb to be ama ficil ahaansho ah. Sidoo kale waxaan ka hadlaynaa contraction oo macnaheedu tahay soo gaabin subjective pronoun plus be and contractions. Ayada faahfaahsan waxaan kaga hadli doonaa cashirkeena. Intaynan cashirkeena guda galin haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe, share, like si anagana ay noogu noqoto dhiirigelin. Iyo sidoo kale haddii aad rajaynayso cashirkan inaad fahantid fadlan cashiradeen hore dib uga laabo mahadsanid. هذه عشر كنا نكون بلاونا قيبتي سكوبات وحرجينا إن أنت إنك قصوا هذا لنا عشر كنا هوري لكن وحي رومانت وكجدو بيني هاي أنكون بلاونا I وأنيجا he وأسجا she ويدا it نورها عن عقل جل هنا واستعمالنا ما نولها you oo adiga ama adinka ah, we oo anaga ah, they oo iyaga ah. laakiin cashir had inta aan soo sheegnay cashirkeena hore waan ku soo baranay laakiin cashirkeena maanta wuxuu dheeraad leeyahay am is are oo macnaheedu tahay ficil ahaansho ah. I oo aniga haddii am aan ku darsano wuxuu noo noqonayaa I am oo macnaheedu tahay waxaan ahay. He asaga he is asaga wuxuu yahay. She iyada she is ayada waxay tahay. It is oo ah ayada ama asaga laakiin kuma saabsana bini aadanka. Waxaan ka wadnaa noolahan caqliga lahayn iyo shiyad iyo alaabiyada dhirtii waxaas u isticmaalnaa. You adiga ama adinka. You are waxaad tihiin ama waxaad tahay. We anaga waay. waxaan nahay daarna waxaan dhehnaa we are. They macnaheedu waxay tahay ayaga. They are ayaga waxay yihiin ama iyaga waxay yihiin. Okay, qaybtii labada aan gudubno ayadoo faahfaahsan. I am aniga waxaan ahay. He is asaga wuxuu yahay. She is ayada waxay tahay. It is ayada ama asaga wuxuu yahay oo ah noolahan caqliga lahayn iyo dhirta iyo wixii lamid ah aan isticmaalna binaadamka markaan kama wadno ama isticmaaleyno. You are adinka waxaad tihiin ama adiga waxaad tahay. We are anaga waxaan nahay. They are ayaga waxay yihiin. intaan waa subjective pronoun plus be. Be-da waa ahaansho qofka wuxuu yahay. aniga waxaan ahay camal waa I am. Okay, contraction macnaheedu waxay tahay waa soo gaabin. anagoo soo gaabinayna I iyo am markaan isku darno waa soo gaabinayna waxaan kala soo baxaynaa hal xaraf yar oo fudud sida laakiin macna ahaan waxba iska bedelaynin. I am aniga waxaan ahay. hadda contraction ka dhigatid aad soo gaabisid waxay ku noqonaysaa I am oo isku xiraysa I am. He is asaga wuxuu yahay. hadda soo gaabisid waxay ku noqonaysaa he is asaga wuxuu yahay. She is ayada waxay tahay. hadda soo gaabisid she's sadeysa. It is ayada waxay tahay masaga wuxuu yahay xayawaanada ama dhirta. hadda soo gaabis waxay ku noqonaysaa
It's. Waa isku wada qabanaysaa kulligeeda. Waxaa dhahaysaa it's. You are. Adiga waxaa tahay ama adinka waxaa tihiin. Hadda isku xiratid waxay ku noqonaysaa your. We are. Waxaan nahay. Hadda isku wada xirno we're. Isku wada xiraysaa hadana we're adhaysaa. They are. Adinka waxaa tihiin. Haddaan soo gaabsano oo contraction aan ka dhigano waxay noo noqonaysaa there. Aan u gudubna qaybteeni saddexaad oo isla cashirkeeni aan weli dhexda kaga sii jirnaa ayadoo si fiican u sii faahfaahsan. I am a student. Waxaan ahay arday. Waxay ka dhigan tahay I am oo la isku xiray oo nooga soo baxday I am a student. Waxaan ahay arday. Aadan waxay ka taagan tahay singular noun oo hal shakhsiyan ka hadlaynaa ama hal arday oo aniga ah ardaygaas. I am a student. Waxaan ahay arday. He is a doctor. He is macnaheedu waxay tahay he is. Waan soo gaabinay waxaan dhahaynaa he is a doctor. Asaga waa dhakhtar. Aadan weli waa singular noun. Weli waa xasuustaan cashirkeeni labaad. She's a pilot. Iyada waa pilot. Pilotka diyaaradaha kaxeeyo. She is a pilot. She's a pilot. Waa hal macno. It is a cat. Iyada waa bisad. It is. Waxaan leenahay it's a cat. Iyada waa bisad. Aadan waxaa u isticmaalnay hal sifaan ka hadlaynaa ama hal singular noun. You are an engineer. Waxaa tahay engineer. Waxaan ka soo gaabinay you are. Waxaa tahay. Saan soo sheegnay you macna ahaan waxay u dhigantaa adiga ama adinka. Laakiin saa u fahanay midkaan ka hadlayno waxaan fiirinaynaa nounka ku xiga hadduu singular yahay ama plural hadduu yahay. Hadduu singular noun uu gadaal ka soo raaco waxaan ka wadnaa hal shakhsi oo ah adiga. Hal qof bis inaan ka hadlayno. Laakiin hadduu plural gadaal ka soo raaco macnaheedu ay tahay s ama es gadaal kaga soo darnay ama ies waxay ka dhigan tahay inaan jamca ka hadlayno oo ah adinka. Laakiin xaaladan waxaan ka wadnaa adiga bas. oo maxaa cadeen u ah an baa cadeen u ah. iyo halkan oo ah engineer. haddii aan jamcan ka rabi lahayn ama jamcan ka dooni lahayn gadaashan waxaan kaga darsan lahayn s anagoo aan meesha ka tuurayna. Okay, we are teachers. waxaan nahay macallimiin. We are macnaheedu waxay tahay annaga. ereygan waxaan kaga soo gaabanay we are. waxaan nahay teachers, arday, macallimiin baan nahay. Okay, sifadan hadda waxay ka hadlayaan anagoo badan. oo maxaa cadeen u ah waxaan isticmaalnay plural noun isticmaalnay. yaa noo soo saari kara plural nounka meeshaan ka isticmaalnay we are teachers. tan waa jamca. laakiin haddii aan ka hadli lahayn hal qof tan waan ka tagi lahayn keliya. laakiin jamca isticmaalay waxaan dhahnay we are teachers. waxaan nahay macallimiin. They are nurses. They ereygan waxaa ka soo gaabin asagana they are. waa isku geenay waa soo yareynay they are nurses. iyaga waa kalkaaliyaal.
kalkaaliye waa kuwa isbitaalada ka shaqeeyo aan dhakhaatiirta ahayn. Nurses maxaa yeelay there waa iyaga waa jamac, waxaan isticmaalnay s oo plural noun ah. waxaan rajeynaa inaad fahanteen oo si fiican u fahanteen. intaynan cashirka xiga aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagay khayr iyo barako iyo barwaaqo. hana ilaawin subscribe, like, share. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.